injineer Rashiid Cilmi Rayaale oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Xariirad ayaa markii ugu horeysay gacantiisa waxa uu ku sameeyay wifi-gan ayaa isagu ah mid casri ah isla markaasina geyiga Soomaalida muddooyinkii ugu dambeysay aan laga isticmaalin. Injineer Rashiid Cilmi Rayaale ayaa wifi-gan waxa uu ka sameeyay qalab aad u fiican. qalabkan ayaa isagu ah wifi-gan inuu leyd ka doonayn isla markaasina uu ka doonayn koronto balse aad u isticmaalayso meel kasta oo ka joogto geyiga Soomaalida. Rashiid Cilmi Rayaale ayaa fikirkan waxa soo dhaweeyay dhalinyarada magaalada Xariirad isla markaasina ku tilmaamay injineer maskaxdiisu aad ay u fiican tahay kadib markii uu gacantiisa ku sameeyay wifi-gani. dhalinyarada magaalada Xariirad ayaa iyagu aad u soo dhaweeyay wifi-gan gacanta uu ku sameeyay Rashiid Cilmi Rayaale. wifi-gan ayaa muddooyinkii ugu dambeysay degmada Xariirad aad u qabsaday kaas oo ah mid xawaarihiisu aad u sareeyo. injineer Rashiid Cilmi Rayaale iyo dhalinyarada munaasabadaasi ka hadashay waxa hadaladoodii kamid ahaa. bismillaahir rahmaanir rahiim. allahumma salli ala sayyidina maxamed. horta halkan waxaan uga mahad celinayaan walaalkii Cabdirashiid Cilmi Rayaale oo noo soo keenay wifi ama aalad cusub nagu soo kordhiyay aan shirkad aanan ku xidhnayn in maskaxdiisa iyo garaad ahaantiisa ku sameeyay muddo dhanna ku soo qaatay in wifi-gan sidii oo dhalinyarada magaalada Xariirad oo wax ugu sameyn lahaa ama wax ugu tiri lahaa maskaxdiisa ayuu ka soo saaray wifi maxay hayday aan bilaaleedo oo shaqeynaya maxay hayday keligii oo iska yaalo adiga oo gashanayso moolka dabkaaga baahan yahay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida uu nagu sameeyay wifi-gan aan qiimaha jaban ee kii shirkadda leeyahayn ee qiimo aad u jabana in xaafadaada leed kaaga baahan hadii aanad leed haysan aad xaafadoon iska dhiganayso moolka dabaysanayso. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana aqoon oo ku keenay maskaxdiisa iyo garaad ahaantiisa. aad ayaan ugu mahadsanahay sida uu nagu keenay wifi-gan in magaalada Xariiradna way u hambalyeynaysaa sida uu keenay hambalyo ayaan leeyahay walaalkii Cabdirashiid. dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin dhammaan dhalinyarada soo abaabushay amaba soo qaabaysay barnaamijkan aan ku soo bandhigayno iba kamid ah hibooyinkayga ee maskaxdayda ka keenay. marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay oo ii suurta geliyay inaan ku guuleysto hadafkan aan ku soo jiray muddo sanad iyo 8 bilood ah. marka labaad waxaan u mahadnaqayaa labadayda waalid oo ay garab igu soo siiyay oo mar walba ka talinayay farxadeyda. marka saddexaad waxaan u mahadnaqayaa xaaskayga oo mar walba ila garab taagneed iguna dhiirigelinaysay inaan kamera dhaliyo inaan soo saaro kibadan aan sameeyay. marka afraad waxaan u mahadnaqayaa walaalahay oo la'aanteed aan wax sameeyeen oo qalabkan aan ku keenay ii iibiyay iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa. haddii aan ka hadlo barnaamijkan ama barnaamijkan aan sameeyay waxaan hindisay ama hindisuhu igu dhashay in 2018 bishii koowaad ayuu hindisahan igu dhashay inaan wax sameeyo oo abuuro intan iyo in kan badan ba cilmi waan u leeyahay inaan bulshada ku soo kordhiyo oo u soo biiriyo. haddii aan ka hadlo sidaan barnaamijkan u sameeyay markii la keenay ama wifi la soo geliyay Xariirad wifi routerku wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood oo loo kala yaqaano RAM iyo ROM iyo CPU iyo operating system wax la dhaho. markaan u fiirsaday gudihiisa wifi-ga oo qalabkiisa oo dhan aan wada akhriyay gudihiisa waxa ku yaala laf loo yaqaano one port iyo LAN port wax la dhaho uu leeyahay iyo CPU iyo RAM iyo ROM iyo wax la yaqaan activation loo yaqaan. markaan qalabka fiiriyay waxaan sameeyay oo qalabka akhristay inaan abuuri karo oo sameyn karo wifi. waayo waxa jira lambara ay leeyihiin routerka ama waa isticmaasho sometimes imika wuxuu leeyahay lambaro gudaha lafta ku yaala. markaan waxa oo dhan soo akhristay waxaan isku dayay inaan fikirkan aan abuuro oo sameeyo. marka fikirkan wuxuu ka kooban yahay oo ka sameeyay samiicad loo yaqaano 2.5W oo muddo badan raadinayay oo raadinteeda in badan ku jiray. halkan waxa kaga yaala sim ba gudaha kaga yaala oo ku yaala kani waa routerkii ka soo qaadayay simkan. labadana waxay siinayaan speed bay siinayaan wax la yaqaano routerku wuxuu leeyahay network router wax la dhaho speed siiya. marka labadana waxay siinayaan speed. labadan battery-na waxay u keedanayaan storage-ka dabkiisa ku yaala labadan ayay u qabanayaan. labadana waa hadii ay cilad ku timaado wifi-gan ayay iyaguna xalinayaan oo solving ku sameeyaan. marka waxa jira program kale oo ku xidhan mobilkayga ama laptop-kayga oo qofka marka aan u gelinayo ama aan ka maamulayo. marka wifi-gani wuxuu soo kordhinayaa leer kuma shaqeynayo dabna kuma shaqeynayo oo dab uma baahno wada fayo markasta doonto wada tagaysa waad ku isticmaalaysaa kaliya wuxuu kaaga baahan yahay
programka inaan mobilkaaga kugu xidho kadibna siimkii ahaan ku dhajino intaan qalabaan soo iibsano kadibna aan sii deyno marka waxaan bulshada ugu baaqayaa gaar ahaan bulshada Somaliland oo leeyahay gaar ahaan dhalinyarada ama wixii isticmaala wifi waxaan uga hambalyeynaya inaan keenay wifi laga maarsamayo wifi hore oo qiimihiisu aad u sareeyay oo $15 ahaa waxaan ballan qaadayaa inaan ka dhigi doono wifi-gan cid aan u geliyo bishii Bermos inaan ka qaado $5 qiimaha gelintuna uu noqon doono $25 taasoo nagu fideeyay dhalinyaradu ay la dhigtoonayeen wifi-gii hore oo laga qaadi jiray 800 marka waxaan uga dhigay 200 oo kala tahay $5 inaan ka qaado qof kastaba bil kasta marka waxaan leeyahay oo mahadnaqaya ilaahay oo ah kii ii suurtageliyay inaan caqabadkan soo qabto mudada inta aan ku soo jeeday oo ma garanaysaa ii suurtageliyay inaan ku guuleysto alxamdulillah waxaan rajaynayaa oo durba ii balowday inaan helo dad fara badan oo igu soo xidhay oo u baahan wifi-gan inaan u geliyo marka waxaan wargelinayaa shirkadaha ku yaala Somaliland gaar ahaan Telesom iyo Somtel aan wargelinayaa in baahidii aan qabnay wifi-yadii kale ee Somtel ama Telesom in maanta aan keenay wifi lagaga maarsamo oo ah wifi aan ka keenay maskaxdayda aan ka tijaabinay oo ka soo maaxnay maskaxdayda marka intaas aan kaga baxayaa anad maasinti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حق محان اسكوغو ايماناي حلفدي رشيد صاحبك يا ايان اسكوغو ايماناي حلفدنا oo ka kooban qalab wifi oo waligeyn bade una ka sugeynay shirkadaha ka sugeynay ayuu walaalkeen magaalada xarqadu ku soo kordhiyay waa markii ugu horeysay oo nin dhalinyara oo curiyo wax sidoo qalab sidaan oo kala dadweynaha lagu maarkintii markaan waxaan leeyahay garaanta inuu magacii dhalinyarada ku hadlaya ninka walaalkeena ee wifi-ga noo keenay ee maskaxdiisana ka keenay waan ku soo dhaweynaynaa waan ku garab galaynaa mushooyinta Soomaaliland waxaan leeyahay ala soo taageerinka lagu soo wal xidhnaado anagu dhalinyarada hadaan nahay haddii walaalkay haduu waxaan keenay anaguna haddii farsamadoodu una siinaya waxaan leeyahay ninka walaalkeena la taageero lagu soo xidhnaado awal Somtel ma xidhnayn wifi-ga toddobaadna uu naga gooyay toddobaadna ma isticmaalay dhibaatadu xagga bay naga haysatay cid aan u qeyshanina ma haysan ya ina naga mid oo dhalinyaro oo walaalkaya ayaa maskaxdiisii ka keenay maanta de wadniga arkaya oo na soo hor dhigay oo dadweynahana u sheegay baday maskaxdiisii ma garan marka waxaan leeyahay anigu lagu xidhnaado bulshada ku soo xidhnaato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقى حسكي مني مناسبة عن مقصقب قلني وهيبو أيبسي وأستول لليرا وكانت فكرة عصب وأسد وسمي له ويفي. أرد العصب ويفي وحكينا مسك حديث. وحرنا صبر اللي جاي سدو تسيلها إلا سمين كرو ويفي. صاحبك رشيد عبد الرشيد aad baan kugu mahadcelinayaa aad baan kugu hambalyeeyaa hambaliyo makulahay wiilka waxaan leeyahay wiilkan waa wiil aad u fiican maskaxdiisa ayuu ka keenay wifi si loo sameeyo waxaan leeyahay wiilka ha la ogaado leh assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan tusayaa wifi-gii oo shaqeynaya wada socotiin wifi-ga waxa igu qoran hacker deeq baa igu qoran aniga YouTube-kiga leeyahay waad arkaysiin waxaad dareemaysiin inuu ka xawaaro sareeyo oo wifi-gani uu ka speed sareeyo ma garanaysaa wifi-ga horan isticmaalayni dhalinyaro fara badan waan tusay way yimaadeen waxayna dareemeen inuu speedkii hore ay isticmaali jireen wifi-ga Somtel inuu wifi-gani ka speed sareeyo oo ka speed horeeyo marka waxaan nagu tusayaa inaan mobile kale inii geliyo oo iniga tijaabiyo oo nagu tuso anoo gelinaya waad arkaysiin anigoo gelinaya mobile kale oo gelinaya waa ka connected groobay waad arkaysiin waxaan nagu tusayaa inay soo dhacayaan message-yadii waad arkaysiin YouTube-kii wadalka saajid YouTube-kiina uu boodiyo u shaqeynayo
marka waxa inii cad in weyfiga hore boqolkiiba boqol oo ka isbiir sareeyo waanan hubaa waanad ku guuleysanaysiin waanad ka faa'iideysanaysiin marnaba inigama joogsanayo isticmaalkiisu waxaan leeyahay wayna soo dhaweynayaa wixii macmiil u baahan wayna soo dhaweynayaa baan leeyahay waanad maasantiin injineer Rashiid Cilmi Rayaale maanta waxa uu sameeyay weyfi fikirka ku jirana waxa laga yaabaa in wax kale uu sii hiigsado waana wax lagu farxo isla markaasina mustaqbalka dhalinyarada soo koraysa maskaxdooda haddii xukuumadda Soomaaliland ay noqoto waxa ku jira gobolka Sela dhalinyaro sidan oo kale oo maskaxdoodu aad ay u fiican tahay gacan qabasho iyo in la garab istaagana aad ugu baahan